waxaan xasuustaa dhowr iyo 10 sano ka hor jamaaca magaalo ku baxday magaaladii markay ku baxeen dadkii way dhageysteen way la yaabeen waxay yiraahdeen war inninku dadkii wanaagsanaa ee masaajida camirayay baa tihiine dadka xaafadan degan ee salaada aanan tukan mid qaado jamaacada u geeya nin odayaa yiri oday dariskayga ah oo 70 jir ah oo waligii salaad aan soo galin oo khamrigana aan habeen iyo maalin u kala saarin ayaa ila darisay hadduu igu kiin arkaano inila socdana dhib baa ay qabsane waa oday dhib badane aqalkiisa sheedan iniga tilmaamiye hay soo sheegin aniga waaya wixii dhibaatay in soo gaadhana inkaas gaarsiiyay marxaba albaabkii bay garaacay waa shantii galabnimo isagoo hurdo ka soo kacay qorradii khamriguna miiska u dul taalo islaan male ilma male waa keligii buu nool yahay dhowr iyo 70 jir saaw qarqaraya way ag fadhiisteen albaabkii markuu ka furay ina jamaaca nahay masaajidkan ka soo booqanay waa ku soo ziyaaranay ma ziyaaraha ziyaarada waa naqaanay u kaadiyo buuri qolkiibu ku noqday lacag buu soo qaaday ziyaaradii wuxuu mooday qoladii tariiqada ee suufiyadu barigoor reeraa waa ziyaaradii shaqabale keena orange imku iska dhamaatay malaynba ana xaqiiqa Djibouti imku iska dhamaatay xaqiina mooyaan imku ziyarada waxa isku badishay ilaahay dartii qofka loo ziyaaranaya oo waxa badishay ilaahay dartii baan ku soo booqano ku soo ziyaaranay waxa diyana kuma sidno waxa diyana kuma kaama doonayne khayrka jamaacada ka yar dhageysan wada dhageysanay markaasuu yaab war dad lacag diida markay lacag ma qaadano wali inta noolahay waa qof lacag diida way ku weey maxaa tihiin ma anako adeer lacag ma qaadanee laakiin waqtiga dadka ka qaadana waqtiga 20 milyan ma nasiin kartaa soo fariista lacag diida maanaba arkay buu la yaab bay ku noqotay mo khamrigan halkan ay taala jamaacadan halkan iska fariisteen indhaha ka qabsadeen xayraad annaku jamaacad waxaan martiya magaalada Hiblaayan ka imanay dadka muslimiinta ziyaaranaynay ka bukaan u ducaynaynay ka dhibaataysan baan ogaanaynay dadka waaweyn waan soo buuqanaynay dhalinyaradana masaajidkan ugu yeedhaynay halkii hadalka markay uu furfurmay wax lacagna ma qaadataan ma qaadano oo lacagta ayaa inaga bixiya bil maali wal nafs bil maali naftaydi maalkayga ku soo baxay ilaahay marka kala hadlan cadamadiisi aakhiradii noloshii dambe qabrigii qiyaamihii u fikray marka wuxuu hadalka adigu leedahay waligii ma maqal buuri waligii wax hadalka ila soo gala ma maqal buuri maxaad iga rabtaan adari sheeg lacag wad igu diideen wax kala sheegtay waxa ka rabnaa anagu laba qof aan nahay amiirkii iyo jamaacadii odayaashii miskiidkay joogaane ina jamaacad u tagto soo salaantid bas intaas aan ka rabnaa ma intaas waa raaci darkii uu soo xidhay daladii khamriga halkii uu ka yimid quradii la socdo shaadkii uu jamaacada u soo raacay wuxuu salaad ma aqaan waxa waxba ma leh iska weysayso weysa ma aqaano kana ku ag fariisana sidoo sameeyo salaad ma aqaano kana ku ag tukane sidoo isagu u sujuudo soo rukuucan u rukuuc halka intii uu sameeyay ayay linear iyo muuzir iyo shaahir bay markiiba u dhigeen maqribkii baa lagu eedaamayba dadkii xaafadu way daawanayaan odayga hebel baa maanta tabliiq miskiidka soo galiyay war tabliiq ma soo galin ilaahay baa soo galiyay yaa soo gashay la in yahdi allah bika rajulan wahida khayrun laka min humri na'am ali nabigu markuu hadalka kulaha dagaal buu diray dagaal khaybar buu nabigu u diray inuu soo baabiyo yahuud laakiin nabigu ka daba hadlo wuxuu yiri ali ogow miyaan la dagaalamaa buu ka yidhi lasdeeda ay ka noqonayaan markaa buu nabigu cali dhagaysa buu ka yidhi mid iyaga ka mid oo sababtaada ilaahay ku soo hadeeyo ayaa geelagiisa casas kaaga khayr badan maqsuudka qitaalku waa maxay hidaaya looga dan lahaa hadday dadku iyagoona lala dagaalamin ay diintii kaa dhagaysanayaan oo diintii kaa qaadanayaan dagaal meesha ma imanayo ogow dacwa muqaddam ala kulli shay dacwada ka horeysa wax walba jamaacadii waxay yiraahdeen war anagu ma soo galine ilaahay baa soo galiyay daaya salaadii maghrib uu la tukaday bayaankii buu la dhageystay cishaayigii buu la tukaday cishaayigii intee soo kaxay bay miskiidkii keenaan haddana salaadii fajr
isagoo lugihiisa ku socdo masjidka soo galay toddoba maalmood isagoo salaadii laazimay dambigii ku jirana ka dhaxbaxay tiisi baa timado ilaahay waa ka manna qaatay wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakun baynahu wa bayna an-nar illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali al-jannati fayadkhulaha wa fi hadith nabi qala inta taakayn leeg markay naarta uga hadho ayaa ilaahay jalla wa ala qadarkii hore ugu qornaa ayaa la hormarinay deedna acmaasha jannada loo weecin toddoba maalmood buu cibaadaystay sidaa baa la rajin ilaahay janna inuu ku geliyo laana khaatimad baa ilaahu hagaaji xusn al-khaatima waa shay ghaaliya annaka jamaaca bari annagoo khaarijina wadanada gaalada shisheeyaha ayaa la noo sheegay nin muslimo oo Soomaaliya laakiin meeshaan joogno wuxuu jiray 40 kilomitir waa buuqanay nin odayo daadiisa ku qiyaasay dhowr iyo 60 jir markaas uu jamaacada halkay ka timid xagga ay dalkii baan ka imanay maxaa u timaadeen dadka muslimiinta inaan soo ziyaaranay bas ajiib وخرجك يا نجا بحيا بالمال والنفس وفيزها ودن كان لما هلا سيادكو هشين إلهي باب بحيا رزقك هدوي ما دالكن وادمن أما عزكو كالي ما دلكو كالي محاد دون سانيمك جماعات دي مسكيت كاسي جوغان إنا نرى عليهم دونين تهنو مسكيت حد ما تجاوب حد مالما كلنا صلاة دايدن إلهي بأقبولي لكن مر هداد بري ما joogtaan waa xada ha waa niima buudi dalkii Soomaaliya warkiisa rabaay Soomaaliya hay kaale Soomaaliya warkiisa waa lagu siinaa Soomaaliya islaamnimadan u socono u muuqatee Soomaafka Soomaaligu xiiseynaya hayna mari ashuu noo yimid maalintii dambe waan soo dhaweynay nasiib jamaacada waxa la socday oday markii istuhudeen dadka Soomaalidu markii istuhudaan mid qaraabadiisa isgarteen markaas warmarkii hebel adiga la oran jiray ha maxaad ka shaqeysaa imika wadankan shaqo ayaa anaka noo dhiibanayay buu shaqo ma jirtee laakiin jaamacad baan dhigtaa oo dalkii markii la joogay nin jaamiciyaad ahayde aqoonta ku dhimanad biirsataa maxay tahay bal ii sheeg wuxuu xiriirka labada dawladood dariska ka dhaxayaan bartaa buu علاقة بين الدول مركز وكوير حرير كهذه إله نجد حما برتا مركز ولمي صلاة يدبوا قلب قلب مركز حرير كهذه إله نجد حما برتا مركز ولمي بروفيسور هذا جامعة ده نيدجا حرير كهذه إله نجد حما كهلان يكون ما يقانن مركز على قول محمد برن بالقول حديث كان ماذا مقال النبي يقول هي أعمار أمتي ما بين 60 و70 عمر الغالب كأمت يذبوا النبي يقول وتضباطني لحدا انت أودا حيسا أذكر واحد لا دوري لحدا جربانا هي انتهت سنة لندن تابو كيدي صلاة يدين واحد لا قلب حرير كأذي له نقد حيانا والضعيف كون وحكود دقنا وحاتر حرير كما بيقانان سدي كلها تهيبو كيدي أو عقلك أجير رشد أجي هذا الكثير وبصير يا جماعات وتري لكن منكي habeenkii cishaay barku tukada gurigiisii buu tagay salaadii fajr isagoo alaabtii wato jamaacada u yimiday wuxuu hadalkaad igu tiraada ma xalay ka seexan kari waayay hadalka xalay igu tiraadeen waan ka jiibsan kari waayay daaciga markuu ninku dad wanaagsan u raaco ummadda khayr u rajaynayo ummadda wanaageega ka fikirayo hadalkiisa ilaahay wuxuu gelinayaa ta'thir saameyn buu hadalkaagu yeelanayaa hada soo islaaxaya ummadan islaaxiga ka soo qayb qaadanaysa qaylada aan qaylino ku badbaadeenayo inaan diinta ka wada shaqeyno wada niyooda insha Allah oo hadii la inaga dalba inaan diinta u baxno waan baxayna wada istunfirtum fanfiru bunabiyuri habeenka jimcaha markaska ka soo qayb gala kulanka diineed bifadlillahi azza wa jalla habeenkii dhawata jimcihi baan u fiirsado masaajidku waa buuxsamaya hadii toolay زماننا دعوته waxay soo martay xillihe
jamaacadu miskiidka markay iska taagaan laga kala yaaci jiray maantana dacwaddu waxay maraysaa in maraakiistii halkaa ay joogsato afka oo ijtimaacyadii markii la yidhi halkan baa lagu qaban 2 sano kadib meeshii yaraatay meel kale loo guuray meeshii way yaraatay hadda annaga Djibouti waxaan maraynaa meeshii saddexaad ijtimaacii u horeeyay 92 200 qof ka soo qayb gashay 10 sano ijtimaaci miskiidka markii lagu qabtay magaaladii dhexda xidhantay miskiid kale weyn bay dawladdu ku deeqday dacwadii haddana kiina uu xidhmay kiina waa laga baxay bannaankii magaalada loo baxay bannaankii magaaladana sanadkan 40,000 qof ka soo qayb gashay ijtimaaci 40,000 qof hargeysana waad ogtihiin war khayrka baa inoo baxay khayrka ma ku darsanaa khayr dhahalade dhagaysta diinada wanaagsan noqo shaqaale diinada wanaagsan ba ka sii fiican الله ينقو أنفع الله ينقو دم داف وصلى الله على سيدنا محمد